بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب المبتدأ والخبر مبتدأ خبر أي أباب يهي waxaan ku soo jirnay marfuucaatul asbaa'i asbaadii la rafcinaya ayaan ku soo jirnay asmaada la rafcinayo waxaan soo sheegnay toddoba inay yihiin toddobadaasi waxay ahaayeen faacil naa'ibul faacil mubtada khabarul mubtada ismu kaana wa akhwaatiha khabaru inna wa akhwaatiha wa taabicu lil marfuuc tawaabicdana afar weeyaano nacti iyo cadaf tawkiid iyo badal toddobadaasi waxaan soo qaadanay laba baab faacil iyo naa'ibul faacil baabul faacil laba arrimood ayuu ka hadlayay baabu naa'ibul faacil saddex arrimood ayuu ka hadlayay ka soo wada baxnay baabkii saddexaad iyo kii afraad ayuu hal meel ku wada qoray musannifka waa mubtada iyo khabar sababkana waxa weeye way wada socdaan mubtada iyo khabar mubtada hadaa aragto khabar daba yaala khabar hadaa aragto mubtada ka horeeya mubtada iyo khabar way isla socdaan sidaa darteedu hal baab ku wada qoray laakiin waa kii marfuucaadka kii saddexaad iyo kii afraad wey saxiix baabkan baabul mubtada'i wal khabari wuxuu kaga hadlayaa afar arrimood baabul mubtada wal khabar afar arrimood ayuu ka hadlayaa baabul kalaam meeqa arrimood uu ka hadlay saddex arrimood baabul i'raab meeqa arrimood uu ka hadlay saddex arrimood baabu macrifati calaamat al-i'raab meeqa uu ka hadlay laba arrimood باب الأفعال حوك هذا لي سدح الريموت وياهي أما عوامل وكهذا لي باب الفاعل بخار ريموت وكهذا لي لا الريموت باب النائب الفاعل بخار ريموت وكهذا لي سدح الريموت باب المبتدا والخبر أفر الريموت أيوك هذا لي أفرت وسهل انتهي مبتدا محل يرى هذا ما يخو وقيب سماه خبر محل يرى هذا ما يخو وقيب سماه أفرت وسوك هذا مبتدا محل يرى هذا imisuu u qaybsamaa khabar maxaa la yiraahdaa imisuu u qaybsamaa afarta arrimood ayuu ka hadlay saxiix mubtada maxaa la yiraahdaa ayuu ka bilaabay mubtada waxa la yiraahdaa saddex arrimood wixii laga helo saddex arrimood wixii laga helo saddexda laba kamida faacilu kala mid yahay faacil iyo naa'ibul faacil ayuu kala mid yahay labadaasi waxa weeye isminimo marfuucnimo labadaa wuxuu kala mid yahay faacil iyo naa'ibul faacil wuxuu kaga bedelan yahay caamil laga hormariyaa waa inuusan jirin waa in asaga hadalka lagu bilaabaa isminimo marfuucnimo caamil ka hormarayna waa inuusan jirin saxiix misaal aan ku siiyo haddaan idhaahdo qaama maya daraba muxamadun maxamed maxay noqoni faacil waaye waayo waa ismi marfuuca ficligiisana laga hormariyey haddaan idhaahdo duriba muxamedunna naa'ibul faacil weeye waayo waa ismi marfuuca ficli laga hormariyey ficligiina shaqo gaar ahaaneed laga qabtay soo ma ahan daraba iyo sheekadan haddaan ka baxo muxamedun qaa'imun idhaahda ka warran muxamedun mubtada waaye maxamed maxaa dhacay waa ismi tanwiintaa baan ku garanaya inuu ismi yahay waana marfuuc wax caamiloo ka horreeyana ma jiro isagaa hadalka lagu bilaabay saxiix saddexda arrimood wixii laga helo ayaa mubtada la yiraahdaa isminimo ficli iyo xaraf midna mubtada ma noqdaan marfuucnimo mansuub iyo majruur midna ma noqdo mubtada caamil ka horeeyana ma jiro hadduu caamil ka hormaro mubtada ma noqonayo caamil ka horeeya waa inuusan jirin isaga hadalka waa in lagu bilaabaa isla fahanni intaa fiirso marka huwa al-mubtada huwa mubtada al-ismu ismi weey al-marfuucu la rafcinayo labadaa faacilu kala mid yahay soo maahan العاري كقاون عن العوامل كوا عمل فليو اللفظية لو هضليو عامل لو هضليو كما هرمريو وايهي عامل ان لو هدلي عامل لو هضليو هدوسن كهرمرينين محرف عنيا اعراب رفعدان سارن واي اعراب سومهن اعرابكنا waxaan soo sheegnay caamil waa inuu keena iska iimaanayso اعراب iska iimaanaya ma jiro اعرابka caamil baa keena rafcada mubtadaha saaran waxa rafcinaya caamil macnawi ah ficliga mudaaric maxaa rafcinaya caamil macnawi oo tajarrud oo samahayn mubtadahana waxa rafcinaya caamil macnawi ah oo aqliga on lagu garanayo aan lagu hadlaynin lana arkaynin muxuu yahay caamilkaasi ku bilaabashada hadalka lagu bilowday oo waxba laga hormarinin ku bilaabashadaasi ibtidaa la yiraahdaa ku bilaabashada ibtida ku bilaabashada rafcini waa caamil aqliga lagu garanayo
naxwada oo dhan caamil macnawi oo camal falaa labadaa keliya ka jirta ficliga mudaaric caamil macnawi yaa rafcinaya tajarudu min annaas walijazm mubtadahna caamil macnawi yaa rafcinaya ibtida weeye ku bilaabashada caamil macnawi kaloo camal falayo naxwada lagu arki maayo qolka xooga badan qola khilaaf waa jira kow waa ismi la rafcinayo kana qaawan caamil lafdi ah caamil lafdi ah wuxuu leeyahay caamil macnawi ah kaba qaawana caamil macnawi yaa rafcinaya ku bilaabashada laakiin caamil lafdi waa wixii lagu hadlo annaga kalaamka soo marnay caamil lagu hadlaya ayuu ka qaawan yahay مثال أنكو سيو محمد قائم ناطر محمد ومبتدأ ما حد كو قرأته واسمي وأنا مرفوع عامل لفظي كهر مرينا مجرو مركز الإعرابي واحد لا محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء مرفوع ولا رفعي بالابتداء بالله وشذا هذا الكلام بالله وده أي رفعنا هيس وعامل معنوية وعلامة رفع ضبط ظاهرة في آخره وهي هي المبتدا هو مبتدا الاسم اسم ويا المرفوع لرفعنا العاري كقاون عن العوامل كو عمل فليو اللفظيه لو هدلو ايو كقاون يحيى مبتدا محل يراهدا باول مبتدا والخبر بخير مودو كهدلي افر ارمود مبتدا محل يرا خبر محل يرا سوماهين مبتدا محل يرا وكا دمات خبر محل يراهدا ابو رو انو كو شيغو والخبر خبر هو خبر الاسم اسم وي المرفوع لرفعنا المسند لغو تيرينيو إليه مبتدا لغو تيرينيو خبر محل يراهدا سدح ارمود وخي لغا هيلو لبا مبتدوه كلا مid yahay ya faaciliyo isminimo marfuucnimo wuxuu kaga bedelan yahay waa in lagu tiiriyaa mubtada waa ismi marfuuca mubtadana loo tiirinayo waxa loo jeedaa mubtadaha sameeyaa la leeyahay mubtadaha loo aaneynaya shaqadani mubtadaha qabtay weey haddaan iraahdo muhammadun qaa'imun muhammadun ninkii muhammad ahaa qaa'im uu istaagayaa sameeyay muhammada u tiirin hays soo maaha horta musnadu ilayhi waxay naxwa isticmaali jirtay maaha balaaqada isticmaasha musnadu ilayhi laakiin marmar hadii waa isdhaxgelayaan balaaqadii iyo sarfigii iyo naxwadii iyo isku galaasay wax ku shubayaan marka musnadu ilayhi wuxuu u jeedaa khabarkani cid la siin hayo loo tiirin hayo way sameeyso way tahay la leeyahay مبتدها وي واسم لرفعنيه مبتدها لو تيرينيو مبتدها لا سينيو اسلا فهني صح سوماhan saddexda arimood wixii laga helaa khabar ah saddexdii hore wixii laga helana mubtada weey wal khabaru khabarka huwa khabar al ismu ismi weey al marfuucu la rafcinayo al musnad lagu tiirinayo ilayhi mubtadaha lagu tiirinayo naxu qawlika hadalkaaga iyo wixii lamid weeye zaydun niki zayd aha qaa'imun wu taagan yahay taagnida zayd ba iskale زيد مبتدا مرفوع بالابتداء مبتدا وحرف عنا يا بانيره عامل معنوي او مغعي ابتداء خبرك وحرف عنا يا مبتدا خبرك لفتي ومرفوع رفعنا واعراب عامل كان على الربع لفتي سمعان مبتدا لفتي صار رفعنا يا مبتدا ماشي يالو يا وحو رفعنا يا خبرك marka waxa leedahay زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد قائم خبر المبتدئ مرفوع بالمبتدئ مرفوع يا رفعنا يا مبتدها واي ابتدا ما هي خبر كم مبتدها رفعنا يا مبتدهنا يا رفعي ابتدا مركا لبا عامل بي كلا ليهين اسكو عامل ماها مبتدها ابتدا رفعني خبر كان مبتدها رفعني ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا مبتداها ابتداء يكون رفعيان خبر كان مبتداها يكون رفعيان ومبتداها رفعينيا صحيح زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وايهي زيد قائم والزيدان قائمان الزيدان مبتدا والزيدان الواو بحسب ما قبله بل وينقاردون إن شاء الله تعالى الواو ده نقده الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى صحيح قائمان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف والزيدون قائمون الزيدون مبتدا
مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ الواو صحيح. إعرابك اللي اسكو دالين جري إنكارتك كدعي جتواب انتهى إعرابك لو كل الله مالي خلاص مرة هذا أحكامتي نحو ذا برتو إعرابك نواتقانا إن الكلام هو اللفظ الكلام مبتدأ اللفظ خبر المبتدأ هذا الكلام اللفظ إعراب كذا من نوع ذي الكلام مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه اللفظ خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه هو ذا بانود من أحد كجرت هو ذا النوع قاهر الدون إن شاء الله تعالى وهي أتكابة أنت سويه إن شاء الله تعالى. عبد الرشيد أري هذا واسقبنا إلى مركز درس قدام بيو وياهي halka waxaad kaga baxday afar arrimood oo baabka uu ka hadlayay laba kamid ah mubtada maxaa la yiraahdaa khabarna maxaa la yiraahdaa waa ka baxday mubtada meequu qaybsamaa khabar meequu qaybsamaa labadaas noo dhiman labadaa waa bari insha Allah taala intaas meel la soo saaro wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika